رسولنا تصلي اللهم صل وسلم وبارك عليه مرتفع رسولك وقدوم صدق ذكره ساتيو xisbiga talada waddanka Jabuuti haya ee UNB ayaa garoonka kubadda cagta ee Alxaaji Xasan Guuleed Abtidoon ku soo gabagabeeyay ololahoogi dhinaca doorashada garoonkani kubadda cagta waxaa soo buuxdhaafiyay dadweyne aad u tiro badan oo xisbigani taageersan رئيس الوزراء ودنك جبوتي عبد القادر كامل محمد وزير كمالية الياس موسى وحايد تدوينها ري جبوتي وشيغين wixii ku sheekaysanayeen qoladan Facebook de maanta ha arkaan hadday inta leeyihiin hadday degleeyihiin ha maqlaan inaad ka tiraadiin annaga waxaan la jirnaa Ismaaciil Cumar Geelle لكن أنا كاي ما دقيسو ما دقيسو عنوري واحد لنا هاي بلانك واجب معه سيدا عتهين واحد نقدون هنا سحارة الدحيسين وقت بالجوغا إسماعيل عمر قال لي وحان نري نو صونقو محان نو صونقو لنا إساقو مدنا إنو ولا ريال إسماعيل عمر قال لي مرشح ما وحانو دنينينو أون صونقود كاو ربنا وحوي قرن كينا يان ربنا إنو أدكادو وجيري مادو مدنمدينا ربنا إني أدكاتو كالقاعي كينا يوضا جوغينا يوضا جيركينا يان ربنا إنان مال أدك أونان عدبا دبدي أين روجين كرين aan gaarsiino isaguna una horseedo intaas midnimada waan dhisaynaa horumarka waan dhisaynaa intaaba waxaa noo horseedaya oo noo hor socda madaxweynihii aad jecleedeen kii aad soo noqda tirahdeen Facebook iyo wax jirin bay rabaan inay yiraahdaan qolo ay ceeb intaabay rabaan inay yiraahdaan Facebook ba ka duminayna wartanetu la ka duminayo Facebook ma ahine ma jirto mana aqbalayna leenahay ugu dambeyntii madaxweynaha waddanka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ahna musharaxa xisbiga UNB waxa uu sheegay dadweynihii tirada badnaa ee ka soo qayb galay ololahani inaanay hilmaamin maalinta codka maanta qalbigaygu si gaar ah ayuu u faraxsan yahay waayo jamhuurka ama dadweynaha intaa leega isugu yimid halkani qaraartii 17 December intii nitimiday waxaan filayaa in ay maanta ay sii kordheen waxaan filayaa in ay dimuqraadiyadda la sheegayay ay waxa aad inagu samaynaysaan iminka sharafteedii ama xaggeedii ugu sarreeyay inaad joogtaan maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay waxaad adigu doonayso ama qofka inuu ku hago ama uu ku taliyo ama uu ku horkaco aad doonayso doorashadiisa sanduuqa aad la tagayso weeyaan dimuqraadiyadda la sheegayba taasaa ugu horraysa waxa aan garanayaa baaqiinii kolkaan anigu ka soo jawaabay shalay waxaan idhi kiidnii baa hadhay maanta waad tusaysaan barrina inaad ku xaqiijin doontiin codkiinna bisha 9 doorashadani madaxweynenimo ayaa dalka Jabuuti ka dhici doonta maalinta Jimcaha ee soo socota waxaana ku tartamaya madaxweynaha haatan mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo siyaasiga madaxa bannaan ee magaciisa la yiraahdo Sakariya Ismaaciil Faarax
بدري كوسار محمود تلفزيون كاسهن عاصمة ودك جيبوتي جيبوتي